sheeg wax aad u baahan tahay haddana aadan arkaynin. jawaab waa hawada. sheeg shayga keliya ee wax cuna haddana aan dhargayn. jawaab waa dabka. sheeg magaca xayawaanka afka ka dhala. xayawaanka afka ka dhala waa raha. sheeg laba khayr oo la kala ilaaliyo. waa kitaabka qur-aanka iyo roob. sheeg qofkii ugu horeeyey ee sooma. jawaabtu waa nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wassalaam. sheeg qofkii ugu horeeyey ee ku labista surwaal. jawaabtu waa nebiyullaahi ibraahiim calayhi salaatu wassalaam. sheeg qofkii ugu horeeyey ee gabya. jawaabtu waa nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wassalaam. sheeg qofkii ugu horeeyey ee fallaar u tuura alla dartii. jawaabtu waa sacad bin abi waqaas radia allaahu canh. sheeg qofkii ugu horeeyey ee qora bismi illaahi arraxmaani arraxiim. jawaabtu waa nebiyullaahi sulaymaan calayh. waxa aad sheegtaa shayga keliya ee uu arko indhoolaha. shayga keliya ee uu indhoolaha arko waa riyada. sheeg magaca yuhuudigii nebiga sixray. waxa uu ahaa lubayd binu acsam. sheeg 5 aan wax lixeeye jirin. waa 5 tiir ee islaam. sheeg wax markuu nadiif yahay madow ah, markuu wasaqoobana caddaan ah. jawaab waa sabuuradda. sheeg nebigii jinka amri jiray. jawaab wuxuu ahaa nebi sulaymaan. sheeg nebigii laga soo saaray waddan afrikaan ah. jawaab waa nebi muuse. goorma ayuu bilowday koobka cayaaraha adduunka? jawaab wuxuu bilowday sannadkii 1930 miilaadiga. sheeg nebigii wax walba u shaqayn jireen. jawaab waa nebi sulaymaan. sheeg nebigii asagoo salaad tukanaya qoorta laga jaray. jawaab waa nebi yaxyaa. sheeg nebi muuse iyo nebi haaruun maxay isku ahaayeen? jawaab waxay ahaayeen walaal.